waxay dalka Mareykanka ka dhex aasaastay boqortooyo daraagiis oo aad u cudud weyn iyadoo bishii ka sameeynayay dakhli dhan $80 milyan kadib markii rag badan oo ugu horeeyo boqorka kokaayinta ee Pablo Escobar ay isku dayeen in ay kala wareegaan ganacsigeedana waxay la gashay dagaalo aad u foolxun oo gobolka Miami ee dalka Mareykanka ka dhigay magaalada dadka ugu badan ay ku dhinteen caalamka oo dhan sanadaasi. Griselda Blanco waa magac aadan weliga ilaawi doonin muuqaalkan wixii ka dambeeya, shakhsiyad aad uga duwan dhammaan dumarka maafiyada ah ee dunida soo mara, waliba ah midooda ugu awoodda badan misna ugu arxanka daran. Aan kula wadaago sida gabadhan ay ugu suuro gashay in ay aasaasto mid ka mid ah boqortooyinkii daraagis ee ugu cudud weynaa dhammaan dalka Mareykanka iyo qaabkii foosho xumaa ee ugu dambeyn ay nolosheeda ku soo idlaatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa Maxamed Xuseen, asxaabta qiimaha badan ku soo dhawaada muuqaal cusub. Griselda Blanco waxay ku dhalatay magaalada Cartagena ee dalka Colombia sanadii 1943. laga soo bilaabo noloshii yaraanteeda, gabadhan nasiibba uma helin in ay ku noolaato nolol xasiloon. Waxaana la sheegaa in dilkeedii ugu horeeyay ay geysatay ayadoo jirta oo kaliya 11 sano kadib markii ay dishay wiil 10 jir ah oo xaafadoodii meel ka agdhow degnaa. Sida la sheegay, waxay reerkiisa weydiisatay lacag madax furasho ah, balse reerkii canugan oo iyagu u haystaa in waxaan oo dhan ay yihiin iska hadal madawaal ah ayaa dhagaha ka jartay hadalkii gabadhan, oo keentay in ugu dambeyn canugii yaraa ay ku dhufato xabad sidiina ay ku disho. Lama aqoonin meesha ay kala timid baaskooladii ay sidatay, inkastoo loo badinayay in uu lahaa adeerkeed oo hooyadeed qaba xilligaasi. Dhacdadan ayaana keentay in hooyadii Griselda ay gabadheeda la soo cararto misna ay ka soo baxaan magaaladii Cartagena iyagoo u soo guuray magaalada Medellin. Laga yaabay in nolosha gabadheeda aysan faraha ka bixin oo ay ka gaarto, balse nasiib darro ma noqon sidii ay filanaysay oo gabadhan waxba u qornaa mustaqbal aan caadi ahayn. Waxayna ugu dambeyn gurigii reerkooda ka carartay iyadoo jirta oo kaliya 13 sano, iyadoo sidii wadooyinkii magaalada Medellin ku dhumaalaysanaysa shaxaad iyo jeebsiibna isaga nool ilaa ay ka gaarto 19 jir. Intii ay wadooyinkan ku nooleed ayay Griselda waxay la kulantay nin lagu magacaabo Carlos Trujillo oo isagu ahaa mukhallas dadka tahriibiyaasha ah u dhoofiyo wadanka Mareykanka. Muddo gudihiina waxa u suura gashay in ay isguursadaan, iyadoo sidii ku bilowday in ay kula shaqaysato. Tan waxay ahayd markii ugu horeysay ee ay dhadhamiso lacagaha sharci darrada ah ee howlahaasi laga sameeyo. Griselda waxay ugu dambeyn Carlos u dhali doontaa 3 wiil, balse nasiib darro guurkoodii ma ahayn mid siiraaga maadaama uu khilaaf soo kala dhexgalay ayada iyo ninkeeda, taa oo ugu dambeyn keentay in Griselda ay disho Carlos sidiina ay kula wareegto mukhallisnimadii. Markii horeba way iska cadeed in qalbigeeda uusan ku jirin wax naxariis ah, misna ay leedahay hami aan ahayn in ay noqoto oo kaliya hooyo gurigeeda iska joogta. Carlosna ma ahayn midka kaliya ee foolxumadan ay u dambeyn doonto, oo wuxuu ahaa oo kaliya kii ugu horeeyay rag ay Griselda u aragto oo kaliya jaaranjaradii ay ku kori lahayd misna ay ku gaari lahayd hamigii ay leedahay. wax badan iyadoo laga soo wareegan geeridii Carlos ay Griselda waxay mar kale guursatay nin kale oo lagu magacaabo Alberto Bravo oo isagoo ka ganacsada misna iibiya draagiska iyo kokaayinta. Nolol ay Griselda ku hami dheereed in badan. Muddo yar kadib markii ay isguursadeenna waxay u soo tahriibeen dalka Mareykanka iyagoo soo degay Queens Park gobolka New York, halka oo ay ka bilaabi doonaan ganacsigoodii draagiska. wax badanna kuma qaadanba oo ganacsigoodii wuxuu isku shareeray cirkaasi maadaama xiriir toos ah uu kala dhaxeeyo maafiyooyinka Colombia ee kokaayinta iyagu sameeya, taa oo u suura gelisay in ay si raqiis ah ku helaan kokaayintan faa'iidooyin badanna ay ka sameeyaan. In muddo ah wax walba waxay u socdeen sidii ay iyagu rabeen, arrimahoodoo dhanna way isugu toosnaayeen ilaa hal goor ay si lama filaan ah wax walba u kala daateen kadib markii booliska Mareykanka NYPD iyo kuwa draagiska la dagaalama ee DEA ay bilaabeen howlgalkii ugu weynaa waqtigaas ee la rabay in lagu ciribtiro kaarteeladan iyagu kokaayinta ku dhex iibiya wadanka Mareykanka. Operation loogu magac daray Operation Banshee. Howlgalkan ayaana dhulka ku daray boqortooyadii yareed ee ay rabtay in Griselda ay meeshaasi ka dhex aasaasto, maadaama markiiba la qabtay dad badan oo iyada u shaqeynayay. Inkastoo ganacsigeedii dhan laga soo afjaray, haddana dhan marka laga fiiriyo arinku wuxuu ahaa mid aad u fiican, maadaama ka hor inta aan iyada gacanta lagu dhigin ay ka baxsatay dalka Mareykanka iyadoo u carartay dalka Colombia. Intii ay halkaa joogtay ayuuna wuxuu khilaaf aad u xun soo dhex kala galay iyada iyo ninkeeda Bravo oo iyagu isku qabsaday lacago $2 milyan ah oo ka maqnaa keedkii. Griselda way ogeed in qof kale oo Bravo aan ahayn uusan lacagta kala bixin halka, mana u beerjileecin oo ma ahayn mid ay ka yeelayso in uu lacag iskala baxo asagoon iyada amar ka qaadan, taa oo keentay in ugu dambeyn ay isagana disho kadib markii ay dhowr xabada isdhaafsadeen iyadoo madaxa ka toogatay halka iyana xabad uu soo tuuray ay kaga dhacday caloosha. Inkastoo dadka qaar ay sheegaan in iyada aysan dilin balse ay u adeegsatay gangsterka weyn ee Pablo Escobar si uu nafta u dhaafiyo. Almuhim kadib markii uu dhintay Bravo waxay Griselda la wareegtay oo
ay gacanta ku dhigtay dhammaan ganacsigii waxayna markiiba bilowday in ay magaceeda ku shacbixiso gudaha dalka Colombia oo nin kasto madax u ah maafiyooyinka waaweyn ay tusiso wajigeeda runta ah iyo in aysan la mid ahayn dumarka kale sidoo kale inkastoo aynan iyadu wali ku noqon dalkii Mareykanka haddana waxay si joogto ah ugu soo dhufin jirtay kokaayinta muddo kadibna sanadii 1978 waxay mar kale guursatay nin saddexaad oo lagu magacaabo Dario Sepulveda nin magac iyo sumcad ku dhex leh maafiyooyinka Colombia balse xariif ku ahaa oo ku caanbaxsanaa dhaca bangiyaasha oo ay u geysan jiray oo isagu ay markii dambe u dhali doonto wiilkeedii afraad ee Michael inkastoo Griselda ay nolol fiican ku dhaxaysatay gudaha dalka Colombia marna kuma faraxsaneen in ay meeshaasi sii joogto ugu horeen Colombia waxaa jooga dad ayada ka magac sareeya sida Pablo Escobar iyo maafiyadiisa Medellin Cartel oo marna aysan macquul ahayn in iyadu ay maafiya midaasi ka weyn ay meeshaasi ka sameeyso waxay rabtay meel ay iyadu boqorad ka tahay cid ka sareysana aanu jirin saadarteed waxay dib ugu soo laabatay dalka Mareykanka iyadoo markan diiradda saartay in ay degto gobolka Miami halkii ay ku noqon lahayd gobolka New York waxayna markiiba Miami ka dhex aasaastay boqortooyadeedii daraagiska iyadoo dhowrkii sano ee xigay ka dhigi doonta kooxdeeda mid ka mid ah kaarteelada ugu weyn ee daraagiska keena dalka Mareykanka intii lagu jiray horaantii 1980yadii 70% daraagiska sida kokaayinta iyo marwaanada ee soo gala dalka Amerika waxa laga soo dejin jiray gobolka Miami Griseldana waxay ahayd dadka lafdhabarta u ah ganacsigaasi iyadoo sidii ku heli doonta naanisteeda caanka ah ee the Queen of Cocaine boqorada kokaayinta waxayna kooxdeeda soo gelin jireen lacag dhan 80 milyan oo dollar bishii taa oo ka dhigaysa in ku dhawaad 1 bilyan oo dollar ay sanadii sameyn jirtay maadaama hadeer ay lacagtan oo dhan gacanta ku haysatana waxay ku nooleed nolol xad dhaaf ah guryo qasri ah gawaarida ugu casrisan diyaarad qaas u ah ayada adigu ma jirin wax ka maqan oo aysan heli karin waxayna caan ku ahayd xafladaha waalida ah ay ku qaban jirtay guryaha waaweyn ee ay leedahay oo ay ku martigelinayso ragga ugu magac sareeya ee daraagiska ka ganacsada balse maadaama ay noloshan quruxda badan hadda haysato misna ay ku raaxaysanayso hantidan faraha badan micnaheedu ma ahayn in naxariis daradii iyo dilalkii xumaa ay iska dhaaftay taa cagsigeedii way ka sii dartay markan oo muddadan waxay ahayd muddadii ugu xumeed ee Griselda ay geysato falalkii ugu arxan ka darnaa iyadoo lagu qiyaasay dadkii ay dishay in ka badan 200 oo qofood waxaas oo dhanna waxa kicin doona tartanka xoogan ee kala dhaxeeya kaarteelada kale ee kula tartamayay gobolka Miami maadaama dad badan ay hadeer arkeen hantida Griselda ay ka sameynayso qof kasta wuxuu rabay qaybtiisa ilaa heer xitaa Pablo Escobar laftirkii uu farac maafiyadiisa Medellin Cartel kamid ah ka dhex aasaaso gobolka Miami balse sheekadu ma ahayn mid sida u sahlan oo Griselda inta ay gacmaha isa saarato afka ka xiran doonta waxayna ahayd goortii ay tusan lahayd raggan sababka ay heerkan ku soo gaartay iyo wajigeeda dhabta ah waxyar kadibna waxay qarxay dagaalo aad u foolxun oo dad badan ay ku dhamaan doonaan taa oo dhowr bilood gudihii Miami ka dhigtay magaalada dadka ugu badan ay ku dhintaan dunida oo dhan mid kamid ah dhacdooyinkii ugu xumaa ee banaanka soo dhigay sida Griselda ay dhiigyacab u tahay waxay ahayd maalin ay iyada iyo kooxdeeda weerar xun ku qaadeen mid kamid ah ragga ka soo jeeda dalka Cuba ee Griselda kula tartamayay daraagiska ninkan oo markii ay weeraraysay ku jiray moolka caanka ah ee Deadland Shopping Mall ayaa waxay ciidankeeda ku amartay in ay moolkii oo dhan ku rusheeyaan xabado iyagoo adeegsanaya qoriga nuuciisa machine gun-ka loo yaqaano moolkan gudihii waxaa ka dhex buuxay dad shacab ah balse iyadu marna uma beerjileecin oo waxay rabtay in ninkan ay nafta dhaafiso taa oo keentay in ay si xun ugu dhaawacmaan dad badan oo shacab ah balse nasiib wanaag ma jirin qof ku dhintay weerarkaasi inkastoo xaalku uusan sida ahaanin markasta sida markii dambe uu sheegay hogaamiyaha iyo asaasinkii Griselda ay ugu kalsooneed ciidankeeda oo lagu magacaabo George Ayala markii ay Griselda amar ku bixiso in qof la kharijiyo waxay la micno ahayd in la baabi'iyo cid kasta oo ka ag dhow meesha uu joogo dumar caruur waayeel muhiim ma aha waxaana arinka foolxumadiisa ku tusinaya kadib markii ay Griselda ku amartay mid kamid ah ciidamadeeda in uu dilo nin lagu magacaabo Jesus Castro oo isagu ahaa mid kamid ah madaxda ciidamadeeda balse sida la sheegay aflagaadeeyay misna bahdilay wiilasheeda mid kamid ah si nasiib darro nimankii ay u dirtay in ay dilaan Castro ayaa laba xabadood madax uga dhuftay wiil laba jir ah oo uu ninkan dhalay ka oo isagu markaasi loogu dhex tagay gaariga aabihiisa iyagoon hubsan cidda saaran gaarigii ay isaga fureen xabado Griselda waxay ciidamadeedii bartay oo ay adeegsan jireen tactico ay aad u jecleed ayada markii ay dil rabaan qof waxay u soo iibisay mootooyin badan iyagoo marka ay wax dil rabaan hal goor ku soo agbaangin kareysta qofkii oo aan filanayn kadibna isla markiiba ku bilaaba xabadii intii xilligan lagu jiray dadkii ay ku kaacsaneed Griselda ma ahayn oo kaliya raggan iyagu cadowga la ah ee sidoo kale dhamaadkii 1983 waxay is afgaareen iyada iyo ninkeeda Dario Sepulveda oo isagu markiiba la baxsan doona canugiisa Michael una cararay dalka Colombia si uu uga fogaado Griselda
balse maskiinkan kama warhayn in markaasi aan laga baxsan karin Griselda oo haddii ay iyadu gacanteeda kugu dili weyso lacagteeda ku adeegsanaysa. ugu dambeynna intii ay la xiriirtay dad ku sugnaa Colombia ayaa la qaarijiyay Dario. canugeedii Michaelna waxaa sidii loogu keenay dalka Mareykanka oo loo soo celiyay. inkastoo markan ay wiilkeedii dib u heshay misna ay haysato, haddana dilkii Dario ma ahayn mid meeshaasi ku xirmi doona oo wuxuu dhaliyay dagaal hor leh oo ka dhaxeeya Dario walaalkii iyo Griselda oo isagu raba in uu u argudo dilkii walaalkiisa. taa oo ugu dambeyn keentay in rag badan oo Griselda xiriir kala dhaxeeyay ay la saftaan Dario walaalkii, rag ay ugu muhiimsanaayeen kuwa kamid ah dadkii u soo dhoofin jiray daraagiska iyo sidoo kale wiilkii uu adeerka u ahaa ninkeedii labaad ee ay isna dishay Alberto Bravo. iyadoo waxaan oo dhan aad arkayso luqunta ay ugu jiraan, haddana Griselda marna ma joojin falalkeedii foosha xuma. taa cagsigeed way ka sii daraysay oo keliya, iyadoo markan nafta dhaafin doonta nin lagu magacaabo Marta Saldarriaga Ochoa. sababka ay u dishay ninkanna muxuu ahaa mataqaan, keliya ma rabin in ay dhiibto lacag 1.8 milyan oo dollar ah oo isagu uu ku lahaa, iyadoo 80 milyan oo dollar bishii samayso ay diidaneed oo keliya in ay dhiibto 1.8 milyan. si nasiib daro dilkii ninkan wuxuu ahaa khaladkii ugu weynaa ee ay gasho, sababtoo ah ninkan ma ahayn nin iska caadi ah ee wuxuu ka dhashay reer Ochoa, mid ka mid ah reeraha ugu awooda badan gudaha Colombia, reer iyagu ka caawiyay Pablo Escobar in uu aasaaso maafiyada Medellin cartel. waxaad moodaa in Griselda ay aamintay in uusan jirin cid hor istaagi karta, wax kasta oo ay doontana ay iska samayn karto. balse haddii aad daawatay sheekadii La Gina ee aanu kaga soo hadalnay muuqaalkan ku hor yaala, waxaad garan kartaa waxa ugu dambeyn qof sidan oo kale ah u dambeyn kara. si la mid ah La Gina, Griseldana marka kasii dambeysay waxaa sii badanayay tirada cadowgeeda ilaa heer meel kasta uu uga horeeyo qof raba in uu dilo ayada. booliiska Mareykanka oo dhan ah, Medellin cartel oo dhan kale ah, walaalkii la dhashay ninkeedii Dario oo dhan ah, wiilkii uu adeerku ahaa ninkeedii labaad ee Alberto Bravo oo dhan ah, isna afartii jiho oo dhan way ka soo xirmatay. taa oo keentay in ay ku noolaan weydo gobolka Miami, iyadoo ugu dambeyn sanadii 1985 go'aansatay in ay u cararto gobolka California, kuna hami weyn in meeshaasi ay ka heli doonto nabad misna ay ku nasato. balse nasiib xumo meeshaasi kagama horeyn nabadii ay filinaysay oo waxaa markiiba gacanta ku dhigay ciidamada DEA ee dalka Mareykanka, iyadoo da ahaan jirta 42 sano. waxaana markii dambe lagu xukumay xabsi daa'in ah, iyagoo xitaa markii dambe u sii raadinayay in ay ku xukumaan dil qisaas ah. balse nasiib wanaageeda dood dheer kadib waxay ka badbaaday qisaaskii iyo sidoo kale xabsi daa'inkii lagu xukumay, iyadoo muddada xabsigeedii looga dhigay oo keliya 20 sano. inkastoo si ay aad uga faraxsaneed muddada xabsiga oo laga yareeyay, haddana nasiib xumo farxadeeda ma ahayn mid sii raagta, maadaama intii ay xabsiga ku jirtay ay howlgaladeeda iyo ganacsigeedii la wareegeen saddexda wiil ee ugu weynaa ilmaheeda oo nasiibkooda xun uu dhex istaajiyey cadowga badan ee ay hooyadooda uga tagtay, ilaa akhiiran saddexdoodiiba loo dilay mid mid. si la mid ah canugeedii yaraa ee Michaelna waxaa la wareegtay dowladda. waxay hawada sare qabweyne la duushaaba muddo yar gudihii ayay ku weyday wax weliba oo ay dunidan ka tacabtay: ilmo, hanti, guryo, sumcad. waxayna ku soo noqotay isla meeshii ay ka bilowday, gabadh aan reer iyo hantiba midna lahayn, misna banaanka taagan. Griselda ayaa ugu dambeyn sanadii 2004 laga sii daayay xabsiga iyadoo jirta 61 sano, waxaana markiiba dib loogu tarxiilay dalka Colombia, halka oo ay ku dhumaalaysan doonto muddo 8 sano ah. inkastoo da'dii ay ka daba timi, haddana cadowgeedii ma dhammaan oo weli waxaa jiray dad ku sugayay banaanka, ilaa ugu dambeyn nasiibkeedii wanaagsanaa uu ka soo dhammaado, iyadoo maalin ka adeeganaysa mid ka mid ah suuqyada magaalada Medellin ayaa qof saaran mooto inta uu soo garab istaagay ka toogtay madaxa, meeshana ugu dhex tegay. isla habkii ay iyadu u adeegsan jirtay cadowgeeda, misna ay jecleed in loo dilo dadka ay rabto. ma cadda qofka uu yahay cidda dishay, balse way iska caddahay cadowgeeda aad ayuu u badnaa. waa hubaal wuxuu ka mid ahaa raggii ay reerkiisa dhibaataysay. bal adigu ma kula tahay in ay la kulantay cawaaqib xumadii ay u qalantay naagtan? fadlan fikirkaaga igu soo qor qaybta hoose commentiga. waxaan jeclaan lahaa inaan akhriyo misna aan arko meesha aad u kala dhacsan tihiin, haddii ay heshay iyo haddii kaleba. sidoo kale haddii aad muuqaalkan la dhacday, sidoo kale daawo muuqaalkan oo isna aan kaga hadalnay qisada 3 gabar oo kamid ah gabdhihii ugu arxanka daranaa ee maafiyada Mexico soo mara. waa hubaal isna uu ku cajib gelin doonaa. halkan ayaan kaga baxay muuqaalka, waa inuu muuqaalkan xiga. waxaan kaga tegayaa sida iyo amaana Allah.